wariyahyaga magaalada Roma waxaa la yiri adduunyadu waa maadeys dadkuna waa ay mathalayaan hase yeeshee xalaytii ka dhacday istaadiyaha Nou Camp ee magaalada Barcelona waxa ay ahayd dunidu waa maadeys Messina waa mathalaya waxay ahayd habeenkii loo firaaqay wacdarada Messi oo inta dhulka la galay Milan baalasha ka rifay oo ku tuntay cawska Nou Campna cunsiiyey sida uu u galay Milan waa wax aan lagu soo koobi karaynin laba kalmadood maxaa yeelay talaabada uu qaadaba waxa ay ahayd mucjiso waxaana la dhihi karaa Messi waa mucjisada kubadda cagta waxaana moodaa in Messi iyo Balooniga iska warqabaan oo mar walba oo Balooniga u sito waa ay adkeed in laga dhigo Balooniga aba moodaa in lugtiisa lagu kooleeyay oo waxa uu isaga dhexbaxay 4 ilaa 5 ciyaartoy oo ka tirsan Milan goolkiisa horena waxa uu dhaliyay daqiiqadii 5 isagoo inta Baloonigii loo soo dhiibay lugta midig ku qaboojiyay oo ay markaasina ku shamuumsan yihiin ilaa iyo 4-5 ciyaartoy oo Milan ka tirsan waxa Balooniga uu ku darbeeyay lugta bidixda isagoo shabaqana ka galiyay halkii uu bartilmaameedsaday isaga oo kaliya kuma barbaran Milan ee waxa kale sida loo dheela baray Milan Iniesta oo ciyaarta iftiiminay waxyaabaha la yaab kale ee uu sameeyay Iniestana waxa ay ahayd in isaga ordaayaba uu xariiftamay sidii loogu dheeldheelay Milan oo isku wada kuustay difaaceeda ayaa mar Balooni uu meel fog ka soo tuuray Montolivo oo si qaldan Mascherano madaxa ugu dhuftay ayaa waxa helay Niang oo inta ka talaabsaday Mascherano fursad u helay inuu gool dhaliyo oo goolkaasina uu dhaliyo Milan hase yeeshee darbadiisa waxa ay ku dhacday qoriga Talyaaniguna waxa ay dhahan gool mankato gool subito gool la gafay gool laga dhali sidaas ayaana ku dhacday Milan maxaa yeelay 2 daqiiqo kadib markii ay gafeen waxa mar kale ugu shalay Messi oo baas qayrul caadi ah oo ka helay Iniesta ayaa waxa sidii hore oo kaleeto iyadoo lagu xoonsan yahay waxa uu si careysan u darbeeyay Balooniga oo ka galayna shabaqa Milan isla meeshii hore halkaas ayaana Messi uu ku soo celiyay labadii gool ee lagu lahaa Barcelona oo Milan ay dhalisay isaragii hore waxa lagu kala nastay 2-2 kaasi oo ciyaarto ay ka socotay hal dhinac oo kaliya Barcelona oo weerara iyo Milan oo difaac maahay shaqo kale aan qabanin qaybta labaad markii la isu soo laabtayna Milan waxa ay istiri xoogaa ismooji oo tabar iska raadi hase yeeshee waxa hortaagneed koox shaqo ka dhigatay weerar oo Balooniba kama khasaaraynin daqiiqadii 10aadna waxa Milan goolka saddexaad ka dhaliyay David Villa Iniesta Xavi dentro del área Villa controla Villa chuta Villa آخرkiina iyadoo ciyaartu ay gabagaba tahay oo Milan ay leedahay hal gool oo nasiiba ka dhali Barcelona ayaa goolkii afaraad waxa uu qobeeyay Jordi Alba waxay yiraahdeen waxa soo laabatay duulkii meel kale ka yimid tii lagu dhigay Milan waxa digniin ay u tahay kooxaha isugu soo haray wareegga xiga oo koox waliba waxa ay ka baqaysaa inay ku soo aado Barcelona ciyaartii kale ee xalay qabsoontana waxa badisay oo wareegga xiga u gudubtay kooxda Turkiga Galatasaray oo 3-2 kaga adkaatay kooxda Jarmalka Schalke caawana waxa qorsheysan 2 ciyaarta hore waxa ay dhex mari doontaa Bayern Munich iyo Arsenal ciyaarta kalena kooxda Portugiiska ee Porto waxa ay martigelin doontaa kooxda España ee Malaga Aadan Sabriye